بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. anigoo ku hadlayo magacayga iyo magaca qoyskayga, awlaadayda, qoyskayga reer Ismaaciil Cala Bakor dhammaan hooyo aan ka ahay, anigoo ku hadlaya magacooda waxaan caawa halkaan aan jeclaystay inaan maalinta barakaysan ee xajka Carafa Ciidul Adha inaan u diro salaan tii ugu qaalisaneed oo islaam ah ummadda Soomaali meel kastay joogaan, gees kastay degan yihiin ummadda Soomaaliya oo idil inaan iraahdo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ilaahay ka baryayaa oo aan jeclahay inuu ilaahay i tusiyo ummadda Soomaaliya oo dib isugu soo noqoto isjeclaato ee burcad dhexdooda ilaahay mariyo oo ay noqdaan dad islaan ah oo ay ka reeban tahay waxyo ilaahay reebay inay maaragtay qulubtooda isu soo jeestaan, qalbigooda burcad mariyaan. waxaan salaamayaa shanta geesood oo Soomaaliya laga bilaabo Djibouti madaxweynaheeda, Somaliland iyo madaxweynaheeda, muxuu ahay Soomaali galbeed iyo madaxweynaheeda, Mandheere iyo madaxdeeda, iyo xarunta weyn oo dhexe ee Soomaaliya madaxdooda. gedigiin waxaan idinku salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ilaahay ha idinka dhigo ummad isjecel oo maaragtay israbto oo isu gargaarto ayaan ilaahay ka baryayaa. in badan baan adduunka ilaahay isoo gaarsiiyey. anigoo haddaan isfasiro waxaan ahay qof dumarahoo wax baratay oo ruugcadaa ah oo siyaasi muddo badan kusoo jirtay, halganno badanna soo gashay oo siyaasadeed. marka waxaan isbidigaa inaan ka hadli karo arrimaha Soomaaliyeed, inaan maaragtay wax ka sheegi karo inta waay aragnimadayda iyo itaalkayga. dadka yaryar ee aan taariikhda loo qorin, dadka yaryar ee ku soo koray jawi 4.5 la yiraahdo iyo dagaalo sokeeye, inay maaragtay ay bartaan taariikhda Soomaali, xalaasheeda iyo quruxdeeda iyo waxay ahaan jirtay iyo sida ay ku dambeysay. marka waxaan isleeyahay ilaahay toobadii tawfiiqda allahna waafajiyo, ilaahay kuu u dambi dhaafo allah naga dhigo, ilaahay kuwii toobada nasuuxa la yimaado allah naga dhigo. ummadda Soomaali waan u duceynayaa. ulajeedada aan maanta halkaan usoo fariistay way iska badan tahay, laakiin waxa waaye dadka waxyaabo badan bay ka hadlaan. anigu sidaan u sheegay qoyskayga waa qoys isku jir ah oo Soomaaliya iyo Somalilandba ka kooban. anigana waxaan ahay qof Soomaaliya ka tirsan, zawjkaygana waa Somaliland. marka caruurtayna waa dadka ugu qurux badan ee Soomaalida isjecladoo midaysneed ka dhashay ee ay u siman tahay, kalgaceylka u siman yahay koonfur iyo waqooyibo. dhibaato badan ayaan soo marnay oo aan juhdi badan ayaan soo galnay. madaxtinimadii oon maaragtay wadanka ka haynay dhibaatooyin badan baa nagala kulmay markii ugu dambeysay, ilaa maaragtay Somaliland dhibaatadii loo geystay annagaba ay maaragtay inoo noqotay saameyn weyn. sidaan ogtihiin Somaliland waan jeclahay maanta inaan si fiican u fasiro si dadka YouTube-yada soo galaya iyo Facebook-yada ee maaragtay chatting kaliya sameynaya inay taariikh dhab maaragtay ay helaan. maanta waxaan maaragtay idiin sheegi karaa inay ka soo wareegtay 60 sano maalintii muxuu ahaa allah u naxariistay Prime Minister Cigaal iyo guddigii la socday ay all the way waddo ku soo mareen ay Soomaaliya yimideen ayagoo xambaarsan Somaliland xidigeeda, ayagoo dowladda Ingiriiska maaragtay ku gacan sayray inay Commonwealth ka mid noqdaan ee gooni u baxaan, ayagoo xamaasad iyo xiisad weyn haysata ayay baabuur ku soo mareen Soomaaliya oo dhan ilaa diyaarado ma jirin. ay yimideen Muqdisho ayagoo oo gacanta ka saaray calankoodii 4 biri naga horeeyay, muxuu ahay intayn la qaadanin inay raalli ka yihiin waxa uu u bixiyay Prime Minister Cigaal Pan Somalism, Soomaali weyn ayuu u bixiyay.
wuxuuna ulijeedada ay aheeday in Soomaaliya ay maaragtay hal calan noqoto. nasiib darrada nagu dhacdayna waxaa noo geystay dhalinyaroy isticmaalkii baana kala qaybiyey 1884 waa inaad daristaan saddex quwadoo waaweyn iyo Ethiopia ayaana kala qaybsaday, Faransiis iyo Ingiriis iyo Talyaani ayaana kala qaybsaday ayagoo iska ilaalinaya maaragtay inuu Jarmalka ay maaragtay uu ku yeesho interest geeska Afrika. dowladaha kale Afrikaanka hal gumeysi baa haystay, markay calankooda helayeen waxay noqdeen hal maxal dhahaa xurriyad iyo hal nation. laakiin annaga meesha ay nasiib darrada ilaa hadda ay haysata ay waxay tahay in noola kala qaybiyo 5 xidigood, in maaragtay dowlado kala duwan noola kala qaybiyay ay suroobi weysan bindimo haddii laga reebo Soomaaliya iyo Somaliland. anigu dadkii ku soo korayaan ahay wixii kacankay calanka ku soo barbaaray baan ahay, marka yacni ilaa calankii laga qaato xiisadaas taariikhiyan odayaashii hore aan weydiin jiray waxay ahayd mid aad u qurux badan, mid oo maaragtay ilaa Kismaayo ilaa Looya Cadde looga dabaaldegay bay ahayd. Soomaaliya iyo Somaliland isu tageedii ma ay ahayn mid oo lagu dhisay shuruudo iyo qoraallo badan lagu dhisay ee waxay ahayd mid wadaninimo iyo xamaasad iyo kalgacayl lagu dhisay. actually wuxuu ahaay act of voluntary union wax la yiraahdo, yacni isu tag bilaa sharuud ah oo maskaxda reer Somaliland ka timiday iyo tan Soomaaliya oo la isu tagay ayay ahayd oo sharuudo lama dhiganin, power sharing ka nooca loo qaadanaana lama samaynin. haddii la sameyn lahaa waxyaabo badanaa badbaadi lahaa. waxaan maaragtay aan idiin sheegayaa ummadda maaragtay aan taariikhaha weli haynin in inequity wax la yiraahdo ama cadaalad darro ay ka dhacday isu tagii 60kii cadaalad darro badan ay ka dhacday, power sharingkii la filayne aanan la helin, iyadoo saas tahay haddana weli la isku jiray oo la isjeclaa. waxyaabo badan baa dhacay, muxuu ahaa cadaalad darro badan baa dhacday, himiladii iyo heesihii iyo muxuu ahay sareeyo manusqaan baa ka nasiibka nasaar. raggii u halgamay calanka waxay dhaxleen cadaalad darro oo dhinac walba ka timiday. cadaalad darradaas oo koos garaysay inuu dagaal sokeeyo dhaco, dagaalkaas sokeeyo oo koos gareeyay in Soomaaliya iyada nafteeda tan koonfur ay iyadana dagaal sokeeyo oo ballaaran ka dhaco oo wadankii Soomaaliyeed la oran jiray labadii xidigood haykalkii dowladnimada ay meesha ku baaba'do. muxuu ahaay leesu tagin Soomaaliya oo geeska Afrika ka aheeday maxaa la dhahaa prominent figure oo Afrika oo dhan dadka ugu sarreeyay aheeday oo maaragtay magac iyo muuqaal iyo munaasib fiican laheeday, waxay kasabtay inay ummadda Soomaali kala tagto, inuu halkaa maaragtay dhiig sokeeyo yimaado, in la kala tago la kala burburo, inaan qaxno oon 4 beejahanaba adduunka aan u qaxno, dhulkayna quruxda badnaa aan joognay inaan ka qaxno. waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo dambe oo ugu dambeeyay oo jabhadeyn oo laga sameeyay Somaliland si lagu helo oo yacni inay goonidooda u istaagaan dhibaatada kadib. Soomaaliyana iyadana ilaa maanta waxay dhaxashay in weli la isku dayayaa dowladnimo in la dhiso. Somaliland 1991 markii maaragtay ay ku noqotay wadanka gooni bay isu taagtay, calankeedii bay maaragtay samaysatay iyada oo tabanayso inay goonideeda u istaagto. waxaan dhihi karaa Somaliland 27 years kadib haddaan faallo ka bixiyo anigoo isdoorbida inaan ka mid ahay, marna aan ahay maaragtay qayb Soomaaliya ka mid ah, marna aan ahay qayb Somaliland ka mid ah, in ay dadaal badan muujisay, inay nabad keentay, inay dowladnimo oo suuban samaysay, in ay xisbiyo democratic ay sameeyeen, inay one man one vote gaareen,
oo maaragtay ay role model inay u noqoto geeska africa oo dhan iyo africa oo dhan mooye ay tahay one of the lead oo yacni demokrasiyada iyo horumarka gaaray. waana u hambalyeynayaa, waana ku faraxsanahay inay heerkaa gaartay oy maanta dhisan tahay. taana waxa keenay waxa waa shicibka somalilan. shicibka somalilan asagaa kasbaday inay mar iyo koow iyo labo inay nabadda ayaga sugaan, inay maaragtay nabad taam ah ay sameeyaan. hadda waxaan ka hadlaynaa marka waxa waaye dhowr qodob. wada hadallo, ilaan haddii la yidhi waa la kala baxay, waxaa loo baahan yahay labadii dowladood shalay isu timiday inay fadhiisato. dhowr jeer baan dowladihii maaragtay koonfur aan kala hadalnay oo aan u sheegnay in loo baahan yahay marka ugu horeyso dib u heshiisiin. shicibka soomaaliya iyo shicibka somalilan haddaba waa isjecel yihiin, waa isu gudbaan. waxaan ku iri ganacsiga ka dhexeeyo, wax maaragtay cadaawad iyo muxuu ahaay iyo colaad kama dhexayso. muxuu ahaay boorame iyo looya cadde iyo hargeysa iyo ilaa kismaayo waa la kala ganacsadaa. shicibka soomaaliya shicibka soomaaliyeed iyo somalilan wax dhibaato oo dhexdooda hadda yaalla maaha. waxaa jirta un kaliya sharcigaas maaragtay ee somalilan gaartay inay goosato oo istaagto. waxaa loo baahan yahay waxa waaye inay dowladda soomaaliya iyo dowladda somalilan inay wada fariistaan oy dialogue furaan oy dhexdooda maxaa lahaa ka wada hadlaan siday ku gaaraanbo. hadday maaragtay kala tegayaan iyo hadday isla joogayaan waa wax entirely ka dhexeeyo labada dowladood inay wada fariistaan si transparent ah, si daacad ah, si lilaahi ah, si understanding yacni ah inay maaragtay ay wada fariistaan. dialogue haasayto beel caalamna kuuma keeni karto, gaalada adduunka maraysana kuuma keeni karto, aqoonsina dowladaha adduunka kuuma samayn karaan unless aanan la fadhiisanin oo maaragtay la wada hadlin. waxaa loo baahan yahay marka aan dhowr jeer annaga muxuu ahaay siyaasiyiinta aan dowladda soomaaliya u jeedinay in dadaalkii la waday 10 sano oo dowladdii sheekh shariif iyo wixii ka dambeeyey oo wada hadaladii ama turkiya ha ahaato ama ingiriiska ama abudabey la wada fariisanay dowladda soomaaliya inay ka noqoto transparent, in ay maaragtay guddigeeda u magacaawdo dadka soomaaliya ka soo jeeday inay u magacaawdo si loo helo maaragtay kalsooni iyo aaminaad loo helo oo loo wada fariisto. oo muxuu ahay dowladdii xasan sheekh waxaa dhacday turki in dad badan oo reer waqooyi ah oo wasaarado badan hayay in loo diray aas wafdi ahaan soomaaliya ee matalayeen. taasna waxay maaragtay burburisay wada hadaladii yaraay oo isu soo dhawaanshadaha ahaay ayay burburisay. ilaa maantana waa lagu kala taagan yahay. waxaa waaye maanta waxa igu kalifay anagoo jecelaa inaan ka hadlo, anoo jecel labada meelba meel nabade inay noqoto, anoo jecel in wada hadalada ay hirgalaan oon ay dhicisoobin had iyo jeer, anoo jecel inaan labadayda garabbo aan maaragtay nin walbaba munaasabkiisa siiyo. ayaa waxaa dhacday daacadnimadii oo maaragtay aan ugu ordaynay somalilan welina waa noo taagan tahay. waxaa dhacay cunsuriyaal badan inay mar walba hadlaan. soomaaliya ma u baahno dad alerjiyo kiciyo, dad caaytamo, dad dacaydeeyo uma baahno. ayadaa soo kabsan u hayso soomaaliya. somalilanna already waa role model oo ayada way taagan tahay. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu u adkeeyo. waxaan idiin sheegaa marka dad badan oo soomaaliyeed oo siyaasiyiin ah ayaa jecel in hargeysa iyo xamarba ay sidoodii hore ahaydaan waa dad soomaali isla dhashay. laakiin haddii la waayena siyaasad unbaa lagu kala tagaa. nidaam siyaasi, jabuutiba waa dowlad gooni ah, soomaali galbeedba waa dowlad gooni ah. yacni waa nidaam siyaasi laakiin wada dhalashadii iyo muxuu ahaay soomaalinimadii iyo dhaqankii iyo diintii iyo islahaanshadii iyo isuhiilintii iyo isjecleysigii in laga booda ma ahan oo soomaaliya iyo somalilan ay cadowtooyo dialogue ku furaan looma baahno. waxaan nahay dad soomaali ul iyo diirkeeda isdhexgalay oo muxuu ahaay qarni ka qarni
iswada mahal dhaha guursanayay isu gooshayay isku mid ah oo Soomaali ayaan nahay dawladnimadana waa halkeedii anigoo ku rajo weyn inuu wada hadallada furmo anoo ku rajo weyn in dib u heshiisiin dhab ah oo yacni qalbiga u furan tahay lama rabo tan oo iska huhaada ah la sameeyo labada dawladood inay inta wada fariistaan ay understanding iyo transparency ku shaqeystaan yacni si daacad ah iyo is-afgarasho annagoo ku rajo weyn oo dawladda hadda cusub ee timidayo madaxweyne ka yahay Farmaajo aan broboskaas aniga naftayda aan u geeyay in loo baahan yahay dib u heshiisiin dhabe in loo baahan yahay in la wada fariisto in loo baahan yahay in xal laga gaaro oo xalaal oo nadiif ah annagoo kulli dad badan aan nahay aniga kumaba sii jiro laakiin dad badan ayaa aaminsan Soomaali weyntana aaminsan Soomaaliya hadday kala baxdane inaa aniga Djibouti waa magaaladeydii leegama xigo sidoo hadaraawi yiri Hargeysa waa magaaladeydii leegama xigo Jigjiga waa magaaladeydii inaan ku shaqeyno dhalasho iyo walaaltinimo systemka dawladnimada anytime buu baabi'i karaa anytime buu isku soo noqon karaa waxaa dhacday dawladda Somaliland dhawaan inay maaragtay ay magacaawday Marwa Edna Ismaaciil waxay u magacaawday inay maaragtay wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ay ka shaqeyso ayadoo matalaysa Somaliland waan idin soo gelin doonaa maxay aheeday waxyaabaha ay Marwa Edna ku hadashay anigu Edna aad baan u aqaan aad baan u jeclaay waxaana ahay gabdhihii markay raayida ay madaxda aheeday role modelkayga ahaan jirtay waa gabdhihii Soomaaliya ugu horeeyay oo wax bartay waa gabdhihii Soomaaliya ugu horeeyay ee madaxda ugu sareysay dalka Allah u naxariiste muxuu ahay Maxamed Xaaji Ibraahim Igaal qabay anigoo dhalinyaro oo jaamacadda qoraya buugaygii ayay Italy noogu timiday saasaan u daawin jirnay role model bay noo aheeday oo aan la joogay qof maaragtay luqad kasta ku hadasho very maaragtay highly qualified oo proudnesska dumarka Soomaaliyeed meel sare geysay oo in lagu daydo ay tahay oo maaragtay charity-da badan ee hadda sameeynaysan iyo taariikhdeedii hore oo ay noqotay sarkaal sare UNDP-ga in maaragtay aan ku dayano oo maaragtay iyada matelno oo iyada noqotona hooyo Soomaali not hooyo siyaasi hooyo Soomaali ay noqoto role modelkaas ay noo aheeday aad iyo aad baan u barashad gareynay laakiin waxaan ka xumahay siday ka noqotayna garan maayo mar haddii lagu xil saaro dib u heshiisiin ama wada hadal waxaa loo baahan yahay terminology-ga la isticmaalayo in aad looga fiirsado waxaa dhacday cajalad baa jirto waa la soo gelin doonaa ay Marwo Edna ay la hadlaysay qolooyin oo sida aan maaragtay ka fahamnay audience ajnabi bay la hadlaysay waayo waxay ku hadlaysay af Ingiriis audience-kaasaytana wuu u sacbinayay Its people have entered into a referendum, and I'm sure it will be discussed by my colleagues. The people of Somaliland have no intention of reuniting with that failed state that is Somalia. And who in their right minds would want to unite with Al-Shabaab? Is that what you would like us to do? Who in their right minds would want to unite with pirates, with terrorists, with warlords? It cannot happen. It will not happen. It must not happen, because that will be a loss to the international community. Somaliland can be a positive partner for freedom-loving people and democratic people of this world. We have shown you what we can do with very little. Which other country in the world has been able to rebuild itself with its own resources, and in less than a quarter of a century has built that Somaliland today, where you have just one terrorist, an old woman like me, because I can terrorize any one of you because I have the freedom to do so. I can pick up a microphone
That's what Somaliland is all about. That's what we are bringing to the world. Let us join and become friends with people who want justice and democracy. Don't push us towards those who want to destroy the free world. Don't push us towards terrorists. Don't push us towards Al-Qaeda and Al-Shabaab and all the other names. Somaliland is here to stay. And the sooner the international community comes to terms with that, the better. We can help you. You've tried. The world has tried 17 times, 18 times. You've had TFGs, FSGs, I don't know, all the Gs in this world to try and bring peace to Somalia, and you have failed. You took the Marines there. It didn't work. Every nation, 28 nations landed on the shores of Mogadishu to try and bring peace to Somalia. Recognize your failures, because it hasn't worked. Our system works. You're spending billions of dollars of good taxpayers' money on Somalia. But do you realize that it's not going to work? Not because you have not tried, but because the people of Somalia do not want it to work. You cannot match the industry of terrorism that they have. You are being beaten by terrorists. marwo edna waxay ka bilowday Somalia. I emphasize that Marathi accent. Somalia waxay tiri waxa waaye warshada terroristic, warshada burcadbadeedka, warshada warlordka, yani kidi Soomaaliya waayeel ciroole dadka iyada mas'uul ka noqon lahayd oo u baahan oo charity ay umul lahayd sheekh shariif Soomaaliya oo dhan dadkeedii iyadoon kala reebin bay waxay tiri walaashay edna Soomaaliya waa warshada terroriska mana la midoobi kara bay tiri in aan la midoobane aniga ima ekay bay tiri meel oo burcadbadeed iyo terrorist iyo maaragtay hoyga wax kastoo xun inaan aniga la midoobo waa maaragtay waa maxuu ahay ma qaadan kara bay tiri waxaan u sheegaa walaashay horta Soomaaliya iyo Somaliland markii la yiraahdo Soomaaliya waa Soomaaliya meesha ugu dad badan ugu qabaa'il badan oo all walk of qabiil aad ka helaysid ama daarood ha ahaado ama hawiye ha ahaado ama digil mirif ha ahaado ama isaaq ha ahaado ama jareer ha ahaado ama oromo xataa ku dhaho cid aanan joogin yamaniintii hore cid aanan joogin malaha marka dadka hadaynan hal qabiil kaliya ahayn dad la xukumi karo maaha dhibaatooyin baa dhacay maxay ahaday hadii ay waxay ku carab dhufatay waxay tiri alqaa'ida horta cid samaysay waa cid iyada u sacbinayeen oo iyada dhageysanayeen oo Amerikaane markii muxuu ahay Afghanistan oo ruushka damcayn oo qabsado dadkii loo sameeyo bilaadin iyo kamid ahaa waxa sameeyay waa warshada Amerikaanka marka horta waxay ayaga sameeyeen inay anaga nagu nisbayso horta waa qalad marka xigto waxa way dalkaada waxba la isku haraa sidaan hore u sheegay dad isla dhashay baan nahay dad waxaan nahay maartay ul idiirkeeda nidaam siyaasi kaliya ayaan muxuu ahay ku kala duwanahay hadii walaashay edna ay soo Machiavellic ay tahay yani muxuu ahay educationkeeda hayga uu siiyay inay gaalo maartay marxabayso oo si ay u hesho itiraaf ay dawladda Soomaali shicibkeeda ayso de waa ku qalad walaal qalad bay kugu tahay waxaan kaloon ku sheegayaa qodobka koobaad wuxuu ahaa terrorismka cid kasta ku jirto kuwa ani ila dhashay oo heer beledweyne xawaadla ku jiro kuwa adiga aad eedooyinka u tahay ee reer waqooyi ayaa ka buuxo waad ogtahay inay ahaayeen hogaamiyaashii muxuu ahaa jabhadda shabaab cid kasta ku jirto caraba ku jirto reer xamara ku jiro cid walba ku jirto marka meel adiga aad ku jirto inaad tiraahdid waa warshadii terroriska yani mooga afkaada iyo carabkaada ismaqlaayeen ma aha language siyaasadeed
oo maaragtay qof mutacalim ah u isticmaalo. There are so many ways to skin the cat, يعني nooc walbaad u hadli kartaa, laakiin inaad sidaas explicit aad tiraahdo waa warshadii terrorismka Soomaaliya ani lama midoobi karo, while adigabo muxuu ahay iyo anigabo iyo cid kastoo Soomaali ay ka mid yihiin dhashayna iyo wixii nala dhashay muxuu ahay ururka shabaab, inaad maaragtay ku dumadayso Soomaali weyn oo dhan, taas walaal waxa waaye wax qalad ah. shacabka Somaliland u maleemahay inuu raalli ka noqonaa in lees caayo. waxa kaloo jirto qodobka labaad oo kale oo walaashay uga jawaabayo, maadaama la yiri waxaad tahay marwo highly qualified, waxaad ogaataa walaal waxaad xambaarsan tahay dumarka Soomaaliya oo dhan baad xambaarsan tahay, magaceynoo dhan baad xambaarsan tahay, oo aan kugu riyaaqaynaa, oo aan kugu jecelnahay. marka waxa waaye waxa markaad ku hadlaysid waxa fiican inaad ka fiirsato intaadan maaragtay aadan hadlin. wax haddana aan ictiraaf iyo calan gaalo ku keeni maysa, intay ku dhageystaan ayay kaa jeesanayaan. marka qodobka labaad waxaa tiri walaal waxaa tiri bal arkaa tiri taxpayerka Amerikaanka baa tiri dadkii ajnabiga aad la hadlaysay lacagtiin yaad ku baabi'iseen Soomaaliya, maxaad ka dheefteen, maxaad ka dheefteen Soomaaliya, ma garatay. waxaa tiri bal xasuusta Mariniskii 1992gii markuu Bill Clinton madaxweynaha ahaa, bal fiirsada oo xasuusta maxaa lagu sameeyay Mariniskeeda muxuu ahaa Amerikaano. يعني waxa way qalbi jilicsi waay, laakiin waxaan ku sheegaa walaalo arinta haddii aad si fiican u darsi laheeday dowladda Amerikaanka ayadaa Soomaaliya ku soo duushay iyadoo faamin jiro, burbur jiro, muxuu ahay warlords weli may abuurnay laba qabiil oo faction isu dagaalamayaan, Cali Mahdi iyo Ciidiid, oo muxuu ahay dhibaato weyn jirto oo abaar jirto, ayaa ummadii Ilaahay waxay tiri loo gurmado farming in Soomaaliya. America meeshay soo gurma laheeday waxay ku tashatay inay qabsato sida ay always sameynaysay, ma garatay dagaaladii labaad ilaa hadda maalinba meel ay adventure ka dhigaysay, ay Asia qabsanaysay, oo muxuu ahay Vietnam waad ogtahay waxay ku sameynaysay, oo muxuu ahay bombada ku tuurtay Japan. waxaasoo dhan iyadoo backage-ka qabto oo sember siyaasadda dibadda ay aad ugu fududaadaan dowladda Amerikaanka ayay dagaal ku qaaday shacabka Muqdisho joogo, shacabka Soomaali. waa wax taariikh galay, adigana kama bixin kartid, annagana kama bixin karno, Amerikaanna kama bixin karo, ma garatay. gaalo magac Soomaaliya kaliya kama ay yeelan arrinka Black Hawk Down, dhibaatadii ku dhacday ciidankii lugta ee Amerikaanka, magac Soomaaliya oo dhan bay u gashay inay Soomaaliya America challenge garaysay, iska celisay, ee ceebaysatay. waxa kaloo hirgalay edna aan ku sheegaa walaal, haddaad political science ka akhrisan laheeday waxa tahay qof dhaqtar weyn baa tahay oo charity weyn ku jiro, marka dirita diplomaticada waxay u baahan tahay in la darso. dowladda Amerikaanka jabkii kaga dhacay way baabi'in kartay Soomaaliya, laakiin fakti horo ceebtii dhacday Bakaaraha, diyaaradihii muxuu ahay la soo riday, dagaalkii ay maaragtay pull out ay ciidanka ku qaylinayeen madaxdooda, waxay dowladda Amerikaanka go'aan ku gaartay hadda kadib inaynan ciidan lugta dal islaameed ayna geynin unless inay rushayso cluster bombka ku rushayso, madaafiic ku rushayso, markay ummadda jilcisay baabi'iso inay markaa qabsato. They took a lesson inayna mar dambe ciidan infantry oo American si maaragtay fudud oona mal u galin. miyana adiga taariikhda baraad ku ahayn, mase waxa ku cad kaliya aqoonsi iyo ictiraaf? maya, anaga isa siinayna aqoonsiga ictiraafka, anaa kaa jecel, anaa rabo inay Soomaaliland meel ka soo baxdo, awlaadeyda ee meel ka soo baxdo, right-ka awlaadeyda ku leeyihiinna waan ku leeyahay. marka walaal dadka maaragtay haddaad iska dhisaysid inaad dadka ay soo dumadaysa maaha. cajaladaada adaa duubtay, waxaa tiri aniga uma quuro inaan la madoobo dad terrorist. aniga waxaan ku leeyahay haddii lagu magacaabay dowladda Somaliland
ay kuu magacaawday sharafka aad laheeday iyo magaca aad laheeday inaad wax keeni karto waad og tahay madaxdii adduunka dadkii envoyga loo diri jiro Kissinger ka mid ahaa hadda nowadays player cid kaa rabtid magacaaw envoy baa tahay waa in adiga naftaada taariikh reebtaa maan dadka inaa cayso ma aha Soomaaliya iyo Soomaaliya sidoo Ilaahay ugu talagalay ayay noqon doontaa waxa weeye mar haddii lagu magacaabay positionkaas quruxda badan aad Soomaaliya haweenka Soomaalina aad maaragtay matalayso Somaliland aad siyaasadeeda matalayso walaal hadallada language-ka hoodgaalada iskaga dhisaysa waxaan kaaga digaa inaad iska dhaafto kuma roono Soomaaliya waa la isjecel yahay wax waa dhacaan walaal civil war meelona adduunka ka dhicin ma jirto America wixii ka dhacay 51 state federal unity bay ka qaadeen Ingiriiska 1640 iyo wixii ka dambeeyay laba walaale iyo wiil iyo aabiisa maaragtay boqortooyadii iyo jamhuuriyadii dhicisowday u kala dagaalamay labadii dagaalkii koobaad iyo dagaalkii labaad iyo Jarmal wuxuu adduunyada ku sameeyay muxuu ahaay waad og tahay waxay isu bedeshay Europe integrated inay Europe midowdo leesu gudbo leesu goosho ma garatay marka ma aha dagaalka sokeeyo wax anaga labadayna kaliya reer ku dhacday ma ahan adduunka oo dhan bay ku dhacday waana la ilooba waa laga gudbaa qof walbana maaragtay wixii ku gudboon ayuu sameeyaa ayna wax ku keeni mayso waxaan marka ummadda Soomaaliyeed u sheegaa gaar ahaan dawladda Somaliland anaa jecel inaan kor u qaado anaa jecel inaan u hiiliyo dawladda Soomaaliyana anaa jecel inaan kor u qaado waxa iga saaran waajib xamar iyo hargeysaba hadday kala baxaan iyo hadday isu jiraanbo waa labadeedii dal marka uma quuro wax xumaatay uma quuro mana cayn karo adigane walaal waxaan ku sheegaa anaga markaan Somaliland qadiyadeedii SNM loo dagaalamay oo ragga iyaga xabsiyada lagu guray dawladii Siyaad Barre oo Ismaaciil Cali Bakorood muxuu ahay madaxweyne ku xigeen ahaa oo towradii raggii dhaliyay ahaa ka doortay markuu arkay cadaalad darrada Somaliland lagu hayo inuu maartay ka dagaalamo ee xabsiga lagu guray walaal adiga calanka United Nationska ee dawladda Soomaali calankeeda ayaad haysatay qaahiraad ka ahayd UNDP wax alaale waxaad halgan Somaliland aad ka geysatay ilaahayga abuurtay ma jirto marka adiga halganaad u soo halgamin ha dhaawicin walaal ha dhaawicin oo muxuu ahay dadkana ha dumadaynin waxaan ilaahay ka baryayaa dawladda Somaliland inay garato yacni waxyaabaha qaarkood inaan lagu helaynin اعتراف anaga jecel dawladda Soomaaliya ayaan faraynaa in la bilaabo wada hadalkii in maaragtay muxuu ahay dialogue furmo oo understanding ka dhaco oo meel go'aan lagu gaaro anaga jecel waana ku maaragtay adkaynaya dawladda Farmaajo inay maaragtay wixii dhacay nidaamkii dictatoriga hay Soomaali weyn oo dhan ay kamid ahayd oo Somaliland garaacay baabi'iyay oo cadaalad darro ku riday inuu maaragtay dib u heshiisiin dhab ah iyo apology dhab ah ay maaragtay ka abuuraan oo laga wada hadlo risaalka ugu dambeeya ilaahay u daa ednay ummadda Soomaaliland waxa idin leeyahay colaad wax meel kuma geynayso dagaal sokeeye unity buu abuuraa hadduu unity abuurinna horumar buu sameeyaa waa idin salaama ummadda Soomaali يوم maaragtay khayr baan ku jirnaa walaashayna waxaan leeyahay ilaahay quluubteeda diinta ha geliyo ilaahay quluubteeda sunnada rasuulka ha geliyo ilaahay quluubteeda kalgaceel gabdhaha yar oo Soomaali iyo wiilka Soomaali ee baaba'aya ee maalin walba madaafiicda ku dhacaysa inuu ilaahay ka qaado dhibaatadaas ilaahay ka qaado ay Soomaaliya sideedii hore u soo noqoto ha ugu duceyso intay gaal hortiisa Ingiriis qurux badan intay kula hadashay ay Soomaaliya kulligeed ay wada caysay Sheekh iyo Shariif iyo cid walbo waxaan hambalyo u dirayaa iida ummadda Soomaali gees kasta joogto waxaan ilaahay ka baryayaa midnimo understanding muxuu ahay Soomaali oo dhan ee wada dhalasho boqol jeer baan waxa maqlaa dadka jaarkayna anigu jaarkaada miyay Soomaali baan ahay Soomaaliya Somaliland waa ul iyo diirkeeda
jabuuti iyo xamar waa ul iyo diirkeeda muxuu ahay jigjigo iyo mandheere iyo kulli shantayna ul iyo diirkeeda nahay dad isku dhaqan isguursaday isdhalay muxuu ahay wax isu ah nidaamka siyaasadeed waa meeshiisa ninka mandheere jooga oo barlamaanka muxuu ahay kenya ku jiro soomaaliya la leeyahay ma la dhahay kenyato taa maaragtay qalbigiina geliya he is somali jabuuti he is somali aniga soomaali baan ahay heer hargeysa soomaali waay soomaalinimada ha luminina waxyaabaha qaarkooda dadka aad qoranaysiin ood u dirsanaysiin envoyga ay ku hadlayaan waxay burburin karaan kalgacalada shicibka maxay aheeday koonfur iyo shicibka maaragtay waqooyi aniga beledweynaan sanad soo joogay waxaan arki jiray gawaarida waqooyi ka imaanayso iyo maqaayadaha beledweyne dadka si isu dhex fadhiyaan reer waqooyi oo qaadanaya basal oo xoolo aruursana oo wax walba ayagana keenaya wax yacni simbolka quruxda badanoo shicibka ka dhexeeyo yaan la burburinin waxaan leeyahay waa idin salaama qowlka islaamka idinku salaama dhalinyarada hadda joogto oo maaragtay aan taariikhda aqooninne taariikhda barta waxaana idinka codsanaa cunsuriyo qabiil ha ku hadlina maxay aheeday lahwi iyo lacabkana iska ilaaliya danigana waa ithim ilaahay toobad iyo towfiiqda ha nagu waafajiyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu